بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وسلامتي meel kasta adduunka aad ka joogtaan waa walaalkiina nuurlaka oodin leh isu soo noqod wanaagsan sidaad la socotaan hore waxa soo daawataan sheekadii la magac baxday mataanihii jeelka maanta waxaan inahay sheeko kale oo qiso dhab ah oo la magac baxday ahdigii jeelka sheekadan waxay ka dhacday gobolka bari ee magaalada Boosaaso qarnigii 21aad Xaajiraage waxa uu ahaa ganacsatada ugu caansan magaalada Boosaaso Xaajiraage waxa uu qiimeyn jiray lacagta ma uusan qiimeyn jirin bini'aadamnimada iyo dadka faqiirka ah oo aan waxba haysan marnaba ma fiirin jirin mar walba wuxuu dhihi jiray aniga gabadhayda ama wiilkayga waxaan ku darayaa qof taajir ah gabadhayda waxaan ku darayaa wiil taajir ah wiilkaygana waxaan ku darayaa gabar taajir ah Xaajiraage waxa uu dhalay laba wiil iyo hal gabar waxa uu aad iyo aad u jeclaa gabadhiisa waxa ay keentay jaceylku qabo in aad iyo aad loo kolkooliyo oo waxa ay rabtana loo sameeyo waxay ahayd 14 jir dhigata iskuul ku yaalo magaalada Boosaaso iskuulka ay dhiganayso kaliya waxa dhiganaya dadka lacagta haysto oo iskuulkaas ma dhigan dhugiisa ma geysan karin qof aan waxba haysan kaliya iskuulkaas waxa dhigan jira ardayda oo waalidkood wax un haysta oo dhiibi kana iskuulka lacagtiisa Xaajiraage gabadhiisa waxa la oran jiray qamar marnaba kuma qanacsaneen nolosha ay ku jirto sababtoo ah gabadha waxa lagu keenin jiray iskuulka gaari waxa lagu celin jiray gaari guriga marka ay joogtana lama ogola in ay banaanka u baxdo taa ay gabdhaha ficid ay la soo ciyaarto marka ay iskuulka joogtana qofna la amaysan hadleen sababtoo ah walaalkeed kabeen ayaa daba socday haddii ay qof la hadashana walaalkeed kabeen aabe ay u sheegay wiilashana way ogaayeen in aabaheed uu xanaaq badnaa maadaama uu maalin wiil ayada la hadlay oo uu weydiiyay imtixaanka uu su'aalka weydiiyay oo aabaheed wiilkii iskuulka hortiisa ku garaacay sidaas darteed wiilashana ayada lama hadli jirin oo qof ay la hadli jirto iskuulka ma jiro waxay sidaas soo ahaataba waxa soo dhamaaday sanduuqsiyeedkii iskuulka ayada waxa ay gashay kaalinta koowaad walaalkeed uu ku dhacay imtixaankii aabaheed ayaa arintii aad iyo aad ugu farxay gabadhiisa maadaama ay gashay kaalinta koowaad ee imtixaanka ayadana waxa uu sii gudubtay fasalka 7aad walaalkeedna waxa la geeyay kuleed ayada cadaadiska saarna qamar cadaadiska saarna waa laga yareeyay oo maadaama ay iskuulka ay gashay kaalintii koowaad sidaas darteed cadaadiska waa laga yareeyay oo ayada isku kileed ayada ayaa aadi jirtay maalin maalmaha kamid ah Xaajiraage gabadhiisa oo iskuulka soo socota ayaa gaarigii lugta ka fariisatay darawalkii gaariga ayaa u sheegay in ay waqti qaadanayso sameeska lugta ayada meesha taagan oo isleeda iskuulkii waa ka dahda ayaa waxa soo maray wiili oo ay isku fasal ahaayeen wiilkii ayaa ku dhahay waan u jeedaa maanta gaari ayaa ka haleesan waana ogaa lug ma garanaysin ay hore ma ku sii wadaa qamar ayadoo qosleysa ayaa waxa ay ku dhahday in warunta ma garanayo lug nabad hore nasiibada adiga baraysi lug hore u sii baxeen oo way sii socdeen inta ay wadada ay sii socdaan ayaa waxa ay is dhaafsadeen wiilkii ayaa wuxuu u dhahay meeshan waliga waxa ku mari jirtay gaari maanta waxaad ku maraysaa lug qamar ayaa soo booday Xaajiraage gabadhiisa waxa ay dhahday waa sax waligii waan ku hamin jiray in aan lug ku maro laakiin maanta nasiibkii ayaa noqday in aan lug ku maro wiilkii ayaa soo booday waxa uu dhahay waa maxay nasiibka aad sheegayso kadib gabadhii ayaa soo booday oo waxa ay dhahday ma garanayo laakiin ama nasiibkaas adiga tahay wiilkii ayaa waxa uu dhahay waar suuragal aniga waligeyga waan soo dhaqsan jiray laakiin maanta waa aan soo daahay nasiibka la sheegay sidaas ma aha kadib gabadhii ayaa waxa ay dhahday ilaa hadda iima sheegin magacaaga iyo fasalkaaga ii sheeg wiilkii ayaa waxa uu dhahay magacaygu waa Xamza waxaan ahay fasalka 6aad adiga waxa tahay fasalka 6aad laakiin aniga waxaan ahay fasalka 6aad B kadib gabadhii ayaa waxa ay dhahday waxa tahay wiil kaftan badan oo akhlaaq fiican aad u maasanta maadaama aad i caabisay sidoo kale wiilkii ayaa waxa uu dhahay adiga waxa tahay gabar aad u fiican laakiin sida laga aaminsan yahay ma tihid kadib gabadhii ayaa waxa ay dhahday oo maxaa laga aaminsan yahay ii sheeg wiilkii ayaa wuxuu dhahay ardayda iskuulka waxay ka aaminsan in aad tahay gabar kabiir badan oo aan qofna la hadlaynin laakiin sida lagu sheegay ma tihid oo horaa loo dhahay barashada horteed qof xaniicin kadib wiilkii ayaa waxa uu dhahay haddii aan saaxiib noqono maxaad ka qabtaa gabadhii ayaa ku dhahday saaxiib waan noqday in kale waan ka soo fikiraya oo waxaan kala soo tashanayaa
saaxiibadeeda qaaliga qamar saaxiibadeeda qaaliga waa hooyadeed oo qofka lama haysato wax walba hooyadeed ay u sheegtay hooyad ayaa saaxiib u ah wax walba ay rabtan hooyad ay la wadaagto oo mar walba hooyad iyada waa saaxiib waxayna dhahday waxaan soo tashanayaa saaxiibadeeda oo wiilka ayaa wuxuu ku dhahay saaxiibadaada waa kuma qamar ayaa waxa ay ku dhahday saaxiibadeeda waa hooyadii ayaan kala soo tashanayaa saaxiibtinimada hadii aan saaxiibtinimadaada aqbalo iyo hadii kaleba wiilka ayaa wuxuu ku aniga jabku siinay dhahday horta kadib wiilka ayaa wuxuu ku dhahay hadii aad jawaabsa ii siinaysa maanta fursad ayaan kuuga helay ilaa markale fursad kuugu helaayay qamar ayaa waxa ay ku dhahday hadii ay saaxiibtinimadaada aqbalay iyo hadii kaleba aniga jabku siin oo jawaab waxaan kuugu siinayaa maanta meesha gaari aan ku fadhiistay oo ka soo raac oo lugta ku fadhiistay gaari aan ka soo raacay waxa ku yaalay farmashiga ayaan soo maray oo waxaan kuugu reebayaa buug xasuus warkayga hadii aan saaxiibtinimadaada rabo hadii aan saaxiibtinimadaada waxaan kuugu reebayaa warqad oo aan kuugu dhahay quraan noqo oo saaxiibtinimadaada marabi kadib waa la soo tashanaa markii ay hooyadeeda dhahday waxa ay u tagtay hooyadeed arintii hooyadeed ayay u sheegtay hooyadeed markii ay u sheegtay hooyadii ayaa waxay ku dhacday gabadheeda sida kula tahay wiilka sidoo ku leeyahay gabadhii ayaa waxay ku jawaabtay hooyo go'aankaadii ii sheegtay lan qaadana aniga oo go'aanka marnaba kama soo horjeesanayo hooyadii ayaan waxa ay ku dhahday gabadheedii biyaha waa wiil fiican wiilkaas ee la saaxiib subaxii ayaa la soo gaaray wiilkii aad iyo aad ayuu ugu walwalay saaxiibtinimada in la aqbalayo in kale laakiin gabadhii ayaa markii ay soo gaartay meesha farmashigii markii ay soo gaartay darawalkii ayaa ku dhahday darawal iyo jooji gaariga darawalkii ayaa ku dhahay farmashiga iska dhaaf mid kale oo kan ka fiican ayaan ku geenayaa oo ma xanuunsan tahay ma xanuunsan iyo dhahday kaliya waxaan dhaafay kaniin oo vitamin C oo iska dhudhuuq in aan soo gato darawalkii ayaa gaariga u joojiyay oo farmashiga ay gashay ninkii farmashiga ayaa wala dardaarantay oo buugan siiyo wiilka liiraado Xamza waana sii baxday kadib wiilkii ayaa imaaday farmashiga markuu u galay magaciisa ayaa la dardaar gabadhii waxay isku dhaaftay kadib buugi ayaa la siiyay waxaan jeclaystay halkaan inaan ku soo gabagabeeyo sheekada oo qaybteeda labaad aan muuqaalka la ka soo duusay oo muuqaalka u dheeraan oo idinkan uga caajisay muuqaalka daawad haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar haddii aad hore joogtana like saar muuqaalkan wixii fikrad iyo ilaahina qaybta comment inuu reeb